horreyn waxaan hambalyaynayaa General Sadiq iyo saraakiisha kale ee caawa aynu xafladan dallacsiinta dhammaanteen ugu dabaaldegayna kala soo qayb galnay taliyaha ciidanka booliska iyo saraakiisha iyo ciidanka booliska dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo waxaynu wada ognahay in boolisku uu yahay saaxiibka bulshada waa saaxiibka bulshada wuxuu saaxiib u leeyahay amnigeenu mas'uul ka yahay waxa uu had iyo jeer heegan u yahay inuu inagala shaqeeyo nabadgelyada inuu amnigeena ilaaliyo nin lagu seexdo ha seexan xilbaad sidaa ha seexan soo jeedo ha seexan waa kuwa dhaxanta had iyo jeer u taagan inay nabadgelyada ka shaqeeyaan in haddii bulshada dhexdeeda dhibaato ka timaado ay amniga sugaan edbinta ka shaqeeyaan sababta saldhigyada booliska iyo OB-ga loo furay waxa weeye dambiilaha inay boolisku qabtaan ku sugaan ciddii lagu xadgudbay in sharciga la waafajiyo waa xoogaga fulinta sharciga ama sida afka qalaad loo yidhaahdo law enforcement haddii nidaam dastuur iyo sharci aynu samaysanay waxaynu u baahannahay cid ilaalisa cid meel marisa cid ku dhaqankiisii suurtagelisa taasi waa xoogaga booliska waxaan leeyahay hambalyo qaybta aad mar walba ku leedihiin sugidda amniga iyo la dagaalanka kooxaha nabaddiidka ee har iyo hoyba inoo diiday oo run ahaantii booliiska iyo ciidamada kala duwan ee amniga iyo militariga la'aantood maanta halka aynu joogna aynaan soo gaadhnin yiditiilo weyn run ahaantii ayaa gashay waxaan arkayay saraakiishii biladaha iyo dallacsiinta la siiyey oo ah dhalinyaro taa macnaheedu waxay tahay waxaynu haysanaa xoog soo jeeda oo da'yar ah oo ayna balwadi ka muuqanin oo jirkoodu dhisan yahay karaamada iyo sharaftii boolisku lahaa ay ka muuqato taa macnaheedu waxay tahay dowladnimada Soomaaliyeed way soo kordhisaa maalinba maalinta ka dambaysa way soo hana qaadaysaa waxa marxaati ka ah oo kale in ra'iisul wasaareheenu 3 week maanta 3 usbuuc uu galmudug joogo galgudud isaga dab qaaday uu Samareeb cadaado gaalkacayo degmooyinka uu ka wada kooban yahay galmudug oo dhan si uu uga shaqeeyo dib u heshiisiinta iyo in maamul hana qaada oo laba kacleeya oo ka dhismo galmudug dadkuna iyagu leeyihiin doorashadooda ciidamadii baa la diiwaan geliyay oo meel fiican maraya hadday yihiin ciidankii militariga la qarameeyay nabadayntii ayaa qayb weyn uu ka qaatay ra'iisul wasaaruhu hormuudna ka ahaa dadku isku soo dhawaadeen booliiskii baa la geeyay oo General Bashiir hadda uu inooga warramay saraakiisha booliiska ee ka howlgalaya markaynu eegno markaa saraakiisha caawa la siiyey bilada xoogga ciidan ee aynu haysanno yididiilada shacbiga Soomaaliyeed soo jeedka iyo jacaylka dalka baanbaydu heesaha qiiraha leh oo ay noo tumayeen kooxda eegan heesi wadaniyada oo ay noo qaadeen iyo booliisku nabadgelyada inuu soo joodo ay dhiiri geliyeen taa macnaheedu waxa weeyaan dib baynu isu taagnay haddaan nahay qaranka Soomaaliyeed waa tashanay mar labaadna kaalintii iyo sharaftii aynu ku lahayn Afrika dunidana ku lahayn baa mar labaad aynu xaqiijinaynaa inoo soo noqotay halkaas aynu kaga siyahay كما تنتهي وقدمتي وحنا همبلينا دمان سراكيش الدلعسية وحنا نقول همبلينا يا مدحونها جمهورية الفدرالية الصومالية مدن محمد عبد الله فرماتشو أو قرتي إن هول وزننا هي سراكيش على الديارة هي جنرال سادق وأي قلمان متيستنا إلا دلعسية وحلا يلون كل سيدر درجلية kaalintii nabadaynta iyo hormuudka ka haydeen sugidda amniga si laba guul baan idin rajaynayaa dhammaantiin booliiska Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed guul baan u rajaynayaa waa mahadsantihiin